kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kasta oo aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni Hiigsi oo toddobaad kasta maalintan oo kale idinka yimaada magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka waxa marti ku ah walow aad hore aad u daawan jirteen dad rugcadaaya dad siyaasiyiin maanta waxa marti ku ah gabadh dhalinyaro calanka Soomaaliya si aad iyo aad u qurux badan ugu soo labisatay waa Qoraan Najax Aadan Faarax najax waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka Somali Cable iyo waliba barnaamijka Hiigsi ayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan Soomaalida waan salaamayaa shaqaalaha Somali Cable waan salaamayaa waan dhawahay aad iyo aadna waa inagu mahad celinayaa najax anaguna mar kale aan ku mahad celinaynaa najax sida aad wada aragtaan waa gabadh da'yar laakiin macnaha ay xambaarsan tahay ayaa la oran karaa inta ay jirto wuu ka weyn yahay najax waa qoraa soo qortay buugaagta ay kamid yihiin qaada farxadda faraha waxaan lumiyay quruxdaydii iyo buug sidoo kale ka hadlaaya nolosha balse laakiinse waraysigan waxa aynu xooga ku saari doonaa maadaama Soomaaliya ay dooratay madaxweyne cusub Maxamed Cabdulaahi Farmaajo najax waxa ay tahay gabadh qoraaya waxayna soo saartay buug la yiraahdo rajadii ummadda oo ay kaga hadlayso madaxweyne Farmaajo najax hadii aad hore u gasho intii aanaynu buugaasi gudagelin bal marka ugu horeysa waxaan ku oran lahaa 1 iyo 2 taariikhdaada adoo bulshadayna daawanaya isbaraaya waa mahadsan tahay ayaan anigu horta waxaan ahay Najax Aadan Faarax markay dadku Najax maqlaan waxbay xasuustaan Qoraan Najax Aadan Faarax magaalada Muqdisho meel badan waa la igu yaqaana activity-ga uu iska badan yahay Najax Aadan Faarax waxay ku dhalatay gobolka Nugaal magaalada madaxda gobolka Puntland garowaan ku dhashay 1995 baan dhashay alxamdulillah dugsigayga hoose dhexe waxaan ku qaatay magaalada Gaalkacyo alxamdulillah salaamaan dhigi jiray dugsigaygii sare hoose dhexe ugu dambeyn waxaan u ambabaxay dalka Kenya waxaan ku qaatay dugsigaygii sare qayb kamid ah sanad u dambeeyay Muqdisho ku dhameystay dugsigayga halkii u dambeysay fasalkii u dambeysay form 4 alxamdulillah waxaan jeclahay inaan wax qoro waa inantaydan yaroo taariikh badan ma lihi shalay baan dunida ku soo biirnay dad waaweyn oo hadee sanado iyo konton sano waxaas jooga ma nihiin oo taariikh badan leh laakiin wax intii aan dunida joognay 20 jir baan ahay soo wax baan ku soo biiriyay dunida waxaan jeclahay inaan wax qoro buugaagtan qoro wax kamid ah sidee u sheegtay abaaya ayaan ba qaado furaha farxadda iyo waxaan lumiyay quruxdaydii soo alxamdulillah qoraan baa la igu xasuustaa walina maan gaarin teetalkaas inaan u qalmo oo waan u halgamaya halkaan u qalmay iyo maslaxan ka muuqan lahaa wali waa u halgamaya najax hadii aan hore u galo waxaad qortay buugan la yiraahdo rajada ummadda rajada ummadda waa buugan hadda aan gacanta aan ku hayo wuxuu bu soo shacbaxay waa intan madaxweyne Farmaajo uu guuleystay buugan xagaad kula maqnayd ayaan aad ba u mahadsan tahay buugan waxba igu sababay horta inaan qoro way dheeraan doontaa intaan ka sheekeynayo sababihii iyo wixii igu sababay inaan buugan qoro horta saad arkaysiinba buuga waxa la yiraahdaa rajadii ummadda waxaana ku qoran mudane madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo alxamdulillah aniga mudane Maxamed Cabdulaahi intuu hayay xilki sanadadii hore 2010 6 bilood wadanka waan ka maqnaa oo nasiib uma yeelan in aan arko naxariistiisi iyo wax qabadkiisi waxaan joogay dalka Kenya magaalada madaxda Kenya joogay Nairobi ardayad baan wax ku barata waxaan kamid ahaa dadka aan sharciga haysan oo Kenya jooga laakiin student card ku jooga wadanka Kenya askartu dhibka u geysado Kenya jooga wadanka Kenya dhibta baan kamid ahaa sidaas oo ahaa 2010kii waan da'yaraa dareenka dawladnimo igu muujirin oo sida hadda wax u dareensanahay waagaas umaan dareensaneen waxa dhacday inaan laakiin dhagtu ii taagneed waayo waxaan ka maqanahay dhulkii aan ku dhashay Soomaaliya waan ka fogahay aad iyo aad waxaan ula socon jiray wax qabadka iyo waxa soo kordha maalin una waxaan yeesan jiray oo aan ku hamin jiray inaan ku laaban doono ayada oo aad u qurxoon wayna dhici doontaa markaan soo laabto taariikhda waan ku sheegi doonaa aan ka sheekeynayo waxaan raadin jiray wargeysyada wax qora
oo Soomaaliya ka faalooda aad iyo aad baan u jeclaa inaan hadal wanaagsan ka maqlo sida ognahaba dhib badan baan soo marnay dhibo badan aan soo marnay waxaas oo dhan waa la socday waxaan xasuustaa maalintii ra'iisul wasaare laga dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo alxamdulillah madaxweynaha dalka Soomaaliya ah maantay dareen weyn iguma jirin ismaan lahayn waa la jeclaan doonaa maalinta iguma jirin waxa qori doontaa kitaabkan ah rajadii ummadda yani wax kasta iisiba ila ahaayeen 6 bilood buu hayay xilkii uu hayay ra'iisul wasaarenimo alxamdulillah maalin ba waxaan xasuustaa anoo xilka 6 bilood ba umaan xisaabinin anigu oo mahsanaadeeda badneed malaha dhaqdhaqaaqana aad u lama soconin waxaan maqlay anoo warkeys akhrinaya inuu is casilay waan xasuustaa waan istaagay haddana fariistay yani waxay igu noqotay wax cajiib ah nin ay dadku jeclaadeen ee u dabaaldegayeen banaanbax badan in loo sameeyay anu maan sii raacin waayo maan arag mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi wax qabadkiisii maan arag oo si aad uma sii raaxin inuu is casilo aad uma sii raadin waan iska aamusay wadanka Kenya in badan baan joogay waxaan joogay waxa soo xumaaday Kenya intaan joogay dhibkeedii baa soo xumaaday aniga waxbarashadii galabare iyo dugsiga sare ii gaadhay dan baan u tagay halkaas waa ii dhamaatay waxaan go'aansaday inaan 2015 aan ku soo laabtay Kenya mudane Maxamed Cabdullaahi oo xil haynin oo madaxweyne uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud Allah khayr siiyo waana salaamaya madaxweynahayga in badan soo gaarsiiyay intaan maanta ina halkaan fadhiyo ku raaxaysana waa madaxweynihii ka shaqeeyay waa madaxweynihii soo gaarsiiyay dawladdaas jirtay markaa imaaday way adkeed maalinta imaanahayay Soomaaliya waxaan ka haystay erayo badan iyo cabsi badan baan ka haystay mid aan inaga soo boodo Kenya waxa jirtay student card baan haysan jiray markaa Kenya joogay Nairobi askarta markaa arko ina wadnaha ay istaago baan ku signaan jiray yani cabsi aan ka cabsanahayo askartaas waa sharci maan haysan taariikhda dheer ee ka sheekaynayso iyo dhibta ka soo gaadhay Kenya Soomaalideena way iska hadal badan tahay maalmii ugu dambeysay intii uu Farmaajo guuleystay waxaad maqlaysay dad badan oo baraha bulshada lagu soo shaaciyay oo waxa kamid ahaa ninkii lahaa Farmaajo iigeeya in buugaaganina waxa la dhahaa rajada ummadda isla Farmaajaad ka qortay maanta halkaas aad taagan tahay in buugan muxuu uga dhigan yahay ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay sheekadii waan u soo socday aad baa u mahadsan tahay markaan Soomaaliya imaaday dadkii waan wareysanayay aad baan u wareysanayay oo waxaan dhahayay sheeg dadkii yaa wax daray waxa la dhigi jiray Farmaajo nin la dhahaa jira waan aqaana Farmaajo waxa uu imaaday aqal u yaala hablaha Soomaaliyeed oo Farmaajo la dhaho baan Soomaali ku bartay waan iska sii aamusay ugu dambeyn ololihii waxa la soo gaaray doorashada la soo gaaray bishii 7aad markay ahayd 8aad baa la sidahayay way dhacaysaa may dhicin bas dad badan baa aftiga aruuriyay waxaan ahay dadka dareenkooda ku cabira inay wax qoraan ku cabiraan ahaa waan la cajabay ii sheeg dadku say ugu maleeyaan rajadooda inay ku jirto Farmaajo Farmaajo bay dhaha kan weyn iyo kan hoose Farmaajo in la doortaan jeclaan laha maalintaas waxaan ku aansaday inaan rajada ummadda iyo halkay himiladoodu tahay iyo qofkay u maleeyeen inaan wax ka qoro baan go'aansaday hadduu guuleysto mudane Farmaajo inaan soo saaro kitaabkan hadduu soo guuleysan inaan hayo ilaa in rajada ummadda laga gaarayo ugu dambeyn maalin qura waxa isbedeshay xaaladii ummadda Soomaaliyeed riyadoodii baa rumowday aniga ka sii darnaa oo aad ugu riyo weynaa oo aad u jeclaa inuu rumowdo waayo waxa jira wax aan maskaxdeeda ka maalay wax aan hameeno badan u soo jeeday ma qiyaasi kartid inta u soo jeeday qofna ma qiyaasi kar waayo qofna ilama qorin taariikhdan iyo mahadnaqan iyo hididiiladan u hayo mudane madaxweyne Farmaajo habeeno badan oo u soo jeedo xanuun bay igu ahayd inuu guuleysan waayo oo kitaabka aan soo saari waayo aan halka ku hayo laakiin farxadii dareemay farxad ka weyn inaan dareemaan huba isla habeenkiiba anigu in dadku sacabtumayeen kitaabkayga aan qoray baan fiirinayay asaga u tahaniyeenayay qormadeedii waa soo bixi doontaa dunidana waad imaan doontaa waana lagu aqrisan doonaa baan dhahayay alxamdulillah wuu ii soo baxay waa kan aan maanta gacanta ku hayo waana guuleystay ummadina way guuleysatay Farmaajona waa guuleystay aad iyo aad baad u mahadsantahay in waxa tiri in hadii madaxweyne Farmaajo oo waqtigaasi aan soo bixin buugayga ma soo saareen
in markasta tartan baa jira cid baa guuleysata marley madaxweynuhu baa guuleysan la maxay tahay sababta qof kasta wax qabtayna in la sheego oo la tilmaamo way fiican tahay adiga maxaad madaxweyne farmaajo hadii xataa aanu guuleysan lahayn ama waqtiyadii hore maxaad u soo saari weyday maadaama aad sida hadalkaaga ka mid aad u qirtay inuu yahay qof wax qabtay okay aad ba u mahadsan tahay dadku rajo may lahayn markaan weydiiyo aan dhaho ka waran hadduu cali xaaji noqdo hadduu sigiriye noqdo madaxweynayaasha markaa u soo diriyo waxay leeyihiin waxaas waxba ma ahan anaka waxaan rajadeena ah waxaan ku riyoonaa waxaan rabnaa inuu soo baxo waxa wax na siin kara wax noo qaban kara mudane maxamed cabdullaahi farmaajo cajiib bay la noqotay anigana inaan rajadooda ka dhigo dad waxa jira aan ballan ka qaado dhahay kitaab baan qoraya rajada ummadda la dhaho haddaad guulaysadeen waa inii soo saaraya haddii kalena waan haraya waa run qof kasta wax qabadkiisa waa la sheegaa madaxweyne kale hadduu ku guulaysto iyo kuwii hayo waan soo saari lahaa kitaab ayay camala laakiin waxaa u qoray shakhsi buu ahaa markii u qorayay dadku ay aad u xiiseynayeen farmaajo ahaa saameentun way kala badan tahay dadka ay kala leeyihiin ayaanay saameyn ba adii dadka ku leedahay ana saameyn ba ku leeyahay waxa laga yaabaa anigu inaan saameentooda aad u hooseyso adna aad u sareyso dad badan baa kugu mashquulahaya sida ani hadda aan wax ugu soo saaray dad badan baa wax kuu sameynahaya soo qofkii muuqda bay maskaxdaadane wax u soo saaraysa oo u curinaysa kitaabkan arkiisa waa kitaab aan curiyay aan waqti ku bixiyay soo waa saameyntu dadka ku lahaa inaan soo saaro kitaabkan haddii aynu buugga guda galno imise qodob baad buugga ku soo qaadatay aad ba u mahadsantahay qodobadan ku soo qaaday ilaa 30 bay gaarayaan qodobo waxaa ka mid ah hogaaminta wanaagsan waxaa ka mid ah taariikhdiisa inaan wax un ka taabtay waxaa ka mid ah dareenka shacabka qodob la dhahayo waxaa ka mid ah dowladnimay ku tabay aan waliba aad uga hadlahayo sidaan aan u dareensanayo oo qiyaasahay qodobo saas ah ku jira mar kale aan ku mahad celinaynaa najaxay sida fiicanad barnaamijka uga qayb qaadatay bal buugga farmaajo haddii aynu halkaa dhigno iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya buuggaaga furaha farxadda wuxuu ahaa buug dhawaamaha xilliyadii u dambeeyay Muqdisho xoog looga daawanayay buuggaas haddii aad isagana wax nooga taataabato muxuu ka hadlaa okay aad ba u mahadsantahay asaguna qisadiisu wata kitaabkaasna waa mahadsantahay buugga qaado furaha farxadda waxaa jiray in dadka dhalinyaradooda ismoora wada yihiin aysan faraxsaneen bariyada dambe waxaa moodaa dadkii inay aad u faraxsan yihiin maalmahan dambe waa dad aan qoslin baa maanta waxaan dhahay inuu Soomaalidu ma qosli jirin miya waxa lagu qoslayaa farmaajo ii geeyo way ku nafiseenba dadku in laga sheekeeyo farmaajo mudane madaxweyne way ku nafiseen soo waxay ahaayeen dhalinteena dhalin isdhiibtay waayo dhib aad u badan bay soo mareen dhalinta Soomaaliyeed waxa ka maqneed ummadeena Soomaaliyeed inay haystaan darajo u wanaagsan ay yihiin dad islaam ah waxaad arkaysaa qof nolol wanaagsan ku nool haysta caruur haysta lacag haysta nabad yani waxba ka maqneen haddana aan faraxsaneen cajiib bay ahayd inaysan faraxsaneen dadkaas soo waxaan tusahayay furaha farxadooda ku heli lahaayeen waayo dadku ma dareensana ahmiyadda islaamnimadu leedahay iyo qiimaha ay leedahay iyo Soomaalinimadu waliba anu aad waxaan dhahay inay ku faanaan Soomaalinimadooda ee aad u dareemaan waa cajiib qof aan ku faaneen shakhsiyadiisa aan ku faaneen Soomaalinimadiisa aan ku faaneen islaamnimadiisa oo ismoral ah oo aan faraxsaneen waxay igu noqotay wax cajiib ah soo waxa jirto kala qiso aniga igu dhacday oo mar farxad iga qaatay laakiin alxamdulillah markay farxad ii soo laabatay kitaabkaas qoray qaado furaha farxadda qof kasta ay qisada igu dhacday ama dhibka aniga igu dhacay ay asaga qof kale waxa jira uu ku dhacayo oo dhalinyaro ah saxiix sida u qaatay farxadda u helay inay u helaan baan waxa u furahayay albaabka u mari lahaayeen soo buuggaas aad iyo aad waxaan dhihi karaa waa dhiirigelin oo dhalinta iyo dadka Soomaaliyeed u dhiirigelinayo in xillimay kugu dhalatay najaxay in aad wax qori kartaa aad ba u mahadsantahay 2013 ugu dhalatay ujeedka ugu weyn ee kugu kalifay maxay ahay adigoo qof dhalinyaro oo fursado badan ku banaayeen dhankii waxbarashada dhinacyo fara badan maxaad ku doorbiday inaad qoraan noqoto aad ba u mahadsantahay abaayay waxaa jirtay 2013 Kenya joogay sidaan ku sheegaba
waxaan iibsan jiray kitaabo yaryar oo adi 3,000 oo marka qiimaha la gaarsiiyo lacagta halkaas 3,000 4,000 5,000 jooga waxay ku qornaayeen English iyo Kiswahili qof kasta luqadiisa u dhalan way ku adag tahay way igu adkeed inaan intaan buug Kiswahili qaado xaafadda la tagay inaan fahmo laakiin waxa ii fududay buug Soomaali oo luqadayda ah intaan meel la tago inaan akhriyo oo fahmo way ii fududeed sariirteedaan tagay intaan buug yar oo Kiswahili iibsaday sariirta markaa tagay waxa igu soo dhacday anoo buugkiisa u haysta ma laga yaabaa isweydiiyay su'aal ahayd ma laga yaabaa intaad buugaag badan qortid najaahay oo Soomaali ah oo Soomaali afka Soomaali ku qoran in sida buuga Kiswahili u soo iibsatay ay dad u iibsan doonaan buugaag adiga qortay oo ajnabi ah oo luqadaada ay qiimo u yeelan doonto sidoo kale waxaan ogaaday luqadaha Ingiriiska ah ee Carabiga Kiswahili luqadahaas waxay qiimo u yeesheen oo dadku u bartaan iskuulo u tagaan inay cilmi ku bartaan ay ku qoran yihiin soo wax cilmi ku qor sida maanta marka loo arko rajadii ummadda rajo marka uu arko oo ninka ajnabiga oo afka aqoonin inuu dhaho ii fasir oo iibsado soo ay qiimo ku yeelato afka hooyo wixii ugu dhaliyay taas in aad baad u mahadsan tahay najaxay sida fiican ee barnaamijka uga qayb qaadanaysid barnaamijka dhanka waxbarashadaada hadii aynu u galno waxbarashadaadu heer intee leegay ku maraysa waxaa ii marsaa waa mahadsan tahay abaayay waxaan bilaabay 2015 jaamacadda bilaabay 2 sano ii dhamaatay waxaan mariyaa semesterkii afaraad 2 sano kala ii dhiman heer jaamacadeed baan joogaa alxamdulillah maxaad barataa public administration buugaaga madaxweynaha aad kaga hadlaysa taariikhdiisa haddaan dib u milicsano qofka akhrista ee qaata maxaa laga faa'iidi karaa wallahi waa mahadsantahay abaayay anigu waxaan u qorayay horta inaan ku dhiirigeliyo madaxweynahayga inaan dareensiiyo qiimaha uu shacabka ka leeyahay ayaanay aniga maan arag qiimaha dawladnimo maan arag qiimaha ay leedahay Soomaalinimo maan arag inaan xorriyad ku maro calankayga hadda calankaygan soo hogoogtay maantay soo dadka dhan way fiirinayaan waxa jirtay mar la dhahay calanka Soomaaliya la isku xiranin anigu aad waxa igu jira qadiyada dawladnimo inaan helo ba igu jirta waan jeclahay inaan madaxweyne kasta dhiirigeliyo aniga madaxweynaha waligay maan istaagin waligay maan la hadlin waligay umaan dhawaanin haddana sidoo u noqdo madaxweyne fiican waxbaan ka qoray oo waan u dadaalayaa qofkii akhriya buuggan wuxuu ka helayaa dardaarmo badan baa ku jira in lala shaqeeyo waayo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddaana la shaqeynin madaxweynaheena cidna ma hagaagis oo asaga bas ku dayno in la dhaliilin ayaanay hadda adoo waalneen oo xanuunsan ku dhaho waad waalanta kuugu celceliyo dee waad waalan marka u dambaysa soo madaxweyne kasta la doorto hadaan dhahno waad xanuunsan tahay waad qaldan tahay qabiiliyasta tahay saan baad qalatay dadkaaga u heelisay wax ma qabatid marka u dambaysa dee sidii uu noqonayaa aan ku tilmaameynay soo aad iyo aad buu u dhexgalayaa in madaxweynaha la dhaliilin oo la dhiirigeliyo hadaan anaga qofkeena sameeysan qofkeena aan dhiirigelin madaxweynaha aan dhiirigelin yaa noo dhiirigelinahay waa maya Soomaaliya tan ka dhiman oo ay la istaagi laada waxa waaye madaxdooda ma dhiirigeliso alxamdulillah wali aniga qof madax ah wax kama sheegin waxay dad badan ba waxay la noqon doontaa la yaab inay najax dawladda dhankeeda wax ka qorto wali allahay intii hadaa ii sheeg ololaha doorasho socday meelaha ii sheeg Facebooka Twitterka kaya waxaas dhan hebel baan rabaa ma dhihi jirin hebel mar raba ma dhihi jirin waayo waxa ogahay markaan dhaho hebel baan rabaa midka kale oo walaalkiisa wuxuu dareemayo waligay maan soo hada qaadin madaxweynaha waxaas ku xun yahay waligay maan dhihin waxaan ahay dadka aadka u aamusan dareenkooda caburiya baan ahay dadka jecel dawladnimo waan ahay waxa xanuun badneed waan soo baxay hadaa xaafadeedaan ka soo baxay baabuurka aan soo raac intaan soo gaarin wiil way igu qosqosleen maxay calanka u xiratay waa maqlay hadalka dhahayeen والله aad ba u qiirooday aniga hadaan arko qof calanka xiran qof ku labisan calankayga waa ilmeeyaa
qiimaha uu leeyahay yacni calankeyga ogahay wadan shisheeye haddaad degtid waxaa ogaanaysaa dalkaaga qiimaha uu leeyahay najax si fiican waxaa tahay gabadh da'yar madaxweyne farmaajona buugga ka qortay buugaag horena sidaa aad hadda ii sheegtay qoray markaad buugga rajada ummadda aad qoraysay taariikh badan macnaha ma ogid oo qof da'yar baa tahay yaa kaa caawiyey taariikhda fog inaad ogaatid ee buugga gacankaa siiyey aad baa u mahadsan tahay dad wax akhriyaan aadna wax u akhriyaan waxaa jiray oday allaha khayr siiyo adeerkay ah oo dawladda hore ku jiray oo aan xogta ka qaadan jiray oo dhigi jiray adeero halkee wax laga maraa halkee ka helaa dad waaweyn oo kale asxaabana way jireen oo ay caawinayeen hooyo sidoo kale way caawinaysay abaayo way caawinaysay maan waayin qof horta ay caawiya alxamdulillah laakiin aad buu ii caawinaya adeer waana u duceynaya waana salaamaya soo halkaas leega soo riixayay oo aan ka helayay dhiirigelinta saxiixa abaaye markaad tallaabo qaadid waad arkaysaa dhibkeeda waxaad arkaysaa dadku dhaliilahaya waxaad arkaysaa dad si xun u farsiranhaya markaan buugga qorahaya dadka qaar waxay leeyihiin maxaad ugu diyaarinaysaa hadduu xumaanayaa ma waxaad ogtahay inuu wanaagsanaan doono dad qaar waxay leeyihiin hadduu xumaado sumcaddaada ku lumaysa soo waxaa jirtay dhib aan ka soo maray horta inaan buugkan qoro iyo habeenaha u soo jeeday anoo habeenada u soo jeeday meelo qadara u aadahayay taariikhdiisa sidaan ku helo baa haddana baa liidhahayo hanjabinahayay maxaad u qoraysaa maxaa ka faa'iidaysaa ma faan baad u qoraysaa ma waxaad u qoraysaa ii sheeg inaad u dhowaatid waxyaalo saasoo aan kala kulmahaya dadka way jiraan oo hanjabisa in lagu dilo iyo in hadalku dhaawacaya lagu dhaho ayaanay waxa xanuun badan in hadalku dhaawacaya lagu dhaho soo dhaawacyo badan waa kala kulmahaya bulshadayda taasna waxa ku sababaysa in dadkeena aan wanaajino uma carbisanin oo dhalinteena ma yaqaanaan in dadkooda wanaajiyaan ay ammaanaan waxay noqonaysaa yacni waxyaalo kale u fasiranayaan inaan buug u qoro oo hagaajiyo madaxweynahayga dhibabkaas ay igala soo kulmahayeen najax waxaa jira buug kaloo la idhaahdaa waxaan lumiyey quruxdayda buuggaasi muxuu ka hadlaa waa mahadsan tahay kitaabkaas wuxuu ka hadlayaa hablaha midabkeeda caddeeye ayaana waxaa jira wadankeena ama dadkeenaba waxay lahaayeen dhaqan maanta waxaa moodaa dheehii cad madoobaa in laiska dhaafay oo la ilaaway waxaan ilbax u malaynay inaan diirkeena qaadno waxaan ilbax u malaynay inaan isticmaalo kiimika dhacday kitaabkaas aad iyo aad waxaan uga hadlahayaa dhibka ay leedahay in la isticmaalo kiimikada in la isticmaalo waxyaalahan la isku qasqaso la soo dhoofiyo wadankana loo soo dhoofiyo in la isticmaalo iyo dhibka ay leedahay waxaa xanuun badan ayaanay oo weliba aad ugu faraxsanahay oo aan ka rajaynayaa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne inuu ganacsiga ama waxaana soo gelahaya inuu xakameeyo dawladaha shisheeye laakiin najax markaad ka hadlaysay waxaan lumiyey quruxdaydii sidee gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda u arkaa in la iscadeeyo oo diirkay la bedelo sidee ku arkeen buugaaga maadaama dumar iyo haween ay bulshada u badan yihiin dumar iyo carruur ay bulshada u badan yihiin horta qof hadaa wax u diidid wax u fiican baa la siiyaa waxba loogu bedelaa hadaad xijaabkan ka qaado waa inaan wax kale ku siiyo habli hadaan u diiday inay kiimikadii marsadaan inaa u diiday waa inaan siiyo wax u bedela buugga waxaa ku qoran kitaabka waxaan lumiyey quruxdaydii waxaa ku qoran sidee u heli lahaayeen haddana midab dhalaalahaya waayo kama maarmaan inay isqurxiyo waxaa jirto kale waxaa u keenay u tilmaamay jikada inay iska qurxin karayaan babayga inay liintii يعني qudaartii in la isku qurxin karayo waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ilaahay waa qurxoon yahay quruxdana waa jecel yahay waa waxa la jecel yahay marka quruxda haddana dumar baan u nahay inaan is qurxino gabar kasta dunida joogta markay qaan gaarto muraayada hor istaagaysa waxay raadinaysaa oo isku fiirfiirinaysaa qaabka isku qurxin lahayd qaabkay u heli lahayd يعني shakhsiyad wanaagsan
markay xoogaa soo weynaato waxay raadisaa sida u qancin lahayd saaxiibkeed waayo habluhu waxay badanaa ku dadaalaan lamaanahooda inay qanciyaan soo waxa jirta waxyaalo kale lagu qancin karo oo natural ah waa ilaahay wuxuu u baneeyay qasilka u baneeyay wuxuu u baneeyay cusburka wuxuu u baneeyay huruuda waxyaalo badan baa la baneeyay habluhu badmarsadaan anu aad waxa uga soo horjeeda kiimikadan dawladda shisheeye noo soo dhoofiyaan waa wax xanuun ah waliba aniga xanuujisa iga ilmaysiisa markaan arko inaan soo iibsanano markaan waliba ku jira daraasaadka aan baarbaarahay waxa jira wadamada sameeya kiimikadan habluhu marsadaan waa laga xanimay South Africa waxa waliba la dhahay in la dilo qofkii keena annagana faana u maleena waa wax xanuun badan waxaana na tusaysa dawlad la'aantan iyo dawladeena jilicsan oo aan awood u lahayn inay kaan darooso ganacsi noo soo galahaya iyo waxyaalaha aaladaha naloo keenayo taasaa dhib u ah najax si fiican wax badan baad ka hadashay maanta oo dadka ku daawanaya ay kula wadaageen ugu dambeyn hadii ku soo gabagabayno buugga la dhaano nolosha buuggaas isna muxuu ka hadlaa waa mahadsantahay buuggaas wali ma safsaar horta waan wadaa saxiix asagana nolosha ugu magac daray ayaanay waxa jira hadaa rabdi inaad baawur wadid maxaad u baahan tahay inaad soo baratid qof kasta oo idaawanaya hami buu leeyahay kaba soo qaad kuwa hamigood yahay inay diyaarad wadaan diyaaradda intay labistaan oo dhashaan ma wadayaan waa in ay soo bartaan waxa jira nolosha waxay tahay in la barto haddaad dhahdid anoo bilaa daro wala baawur wadaya dee waad la dhacdhacaysaayo marba qarba ku qaadaysaa laakiin haddaad baratid halkii loogu talagalay ama halkii toosaneed baa marinaysaa nolosha anigu marka waxaan ka dhigay inay tahay wax la barto la daraaseeyo haddana noloshaada in adiga leedahay qofku inuu ku noolaado buugas aad u taabanaya u barbaaraya qofku inuu ku noolaado nolol uu asaga ma jeertay oo asaga mas'uul ka yahay oo asaga gacanta ku haya baan aad uga taabanaya oo dadka u tusahaya inay noloshooda ay leeyihiin inay nolosha qurux badan tahay sidoo kale waxa ku jira nolosha maalmo qurux badan maalmo khayr leh ku jira in laga faa'iideysto in loo arko dib ma aha noloshii in qofka farxad ku noolaado noloshiisa maareysto heer gaaro wax qabto dadkiisa diintiisa naftiisa wax u qabto buukaasna ka hadlaya aad iyo aad baan najaxay kuugu mahad celinaya runtii wax badan oo in badan oo Soomaaliyo ku daawan doonta ay ka helaan ay barnaamijka la wadaagtay ugu dambeyntii inta da'da yar inta Soomaali ku daawanaysa kula dareenka maxaad fari lahayd waa mahadsan tahay madaxweynaha iyo dadka Soomaaliyeed ba fariin baa u diri lahaa aan ku hormaro dadka Soomaaliyeed fariinta u dirahaya Soomaali baan wadanahay dadka waa u sareena wali waxaan leeyahay dareema inaan dadka u sareeno u qiimo badan nahay waxaan nahay dad dhulkoodu khayraad leeyahay waxaan nahay dad maskax maal ku badan yahay oo maskaxdeena ay fresh tahay waxaan nahay dad islaam ah waxaan leeyahay qof kasta ay wuxuu leeyahay hibo qof kasta ay wuxuu leeyahay nimcooyin waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah nimcada Ilaahay ku siiyay adiga oo wax ku qabsan godka hala gelin oo ka faa'iideysan nimcoonka Ilaahay ku siiyay iyo lixaad oo Ilaahay ku dhameystiray ka faa'iideysan leeyahay oo dadkiina wax u qabta madaxdana hala shaqeeyaan leeyahay siday u noqdaan dad wanaagsan qofkeena qaloocan anaka aan toosino yaa la caayid dhaleecada aan iska dhaafnaa leeyahay fariintaas u dirahaya fariinta labaad waxaan fariin u dirahaya oo hambalyeynahaya mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka horta waxaan leeyahay waan ku jeclahay waxaana kugu jeclahay si dadku ku jecelyihiin si gaduwan waxaad igu leedahay dareen gooni ah waxaan maali qura dareemay farxad aysan ii dareensiin jirin madaxweynayaasha kale waxaan arkay dad aad u qiireysan waxaan ahay dadka maskaxdooda wax ku dareema ama ku cabira qoraalka ii sheeg wax dareenkooda ku cabira inay wax qoraan maalmaha wax qorahayay waxa jirtay waraaq aan wax ku qorahayay waxa ku soo daadinaysay markaan qorahayay farxad ilin ah soo ilintaas waxay iiga timid farxad aan ku farxay in la doortay ilintaas waxay iiga timid rajaweyni aan ku rajaweynahay inuu Soomaaliya wax u qaban doono waxa xasuusta
والله وان isku laabay waraaqda qorahayay intaan qori waayay waxaan qorahayay dareenkay markaa cabirahayay waa isku laabay so waxaan leeyahay waxa jooga dad aad u badan mudane oo ila dareen ah waxa jooga dad himidoodii ay dhimatay waxa jooga dhalinyaro ku sugahaysa waxa jooga sidoo kale hooyooyin ku sugahaya aabooyin ku sugahaya dhalin ku sugahaysa ku ooman adiga ku istaagtay oo ku jecel baa jirta waxaan leeyahay sharaftaada weeyaan iyo sharafteena inaan noqdo madaxweyne fiican rajadeena in aad rumaysid rajadaadana rumaysid waa wax aad u wanaagsan waxaan leeyahay na dareensi Soomaalinimada wali maanan arkin annaka in aan Soomaali maanan arkin oo qiimo leh wali waxaan rajaynayaa inuu madaxweynenimada hayo 4 sano inuu na dareensiyo qiimaha aan leenahay wadamada shisheeye aad baan ugu liidaa waxa jira in habeeno oo jira markaan Kenya joog jiray oo ay aan seexan jirin xanuunka iyo dhibka lagu hayo dadkayga waxaan leeyahay dareen xanuunka lagu hayo waxaan leeyahay inuu dareemo xanuunka iyo dhibka lagu hayo dadkeena oo hindeena iyo dareenkeena uu ka run sheego waana salaamaya waxaan kuugu hambalyeynaya madaxweynenimadaada ku guuleysatay wali kumaan hambalyeyn baan leeyahay wali kulamaan kulmin agtaada wali maan soo istaagin wax qabadkaaga iyo wanaagaaga bas baan arkay aniga saasoo ay tahay aniga oo ah shakhsi noloshiis Ilaahay og yahay baa waxaan u soo jeeday inaan u mahad celiyo tuso qiimaha uu leeyahay baa habeeno u soo jeeday aan u xanuunsaday hadaa intaan soo jeeday aan wax u qorahayay sida u dareensiisay dadka u jecel yihiin sida loo jecel yahay marka waxa leeyahay sida ku jecelnahay noo jecelo Soomaalinimada iyo rajadan ku qabno waxa leeyahay kan rusheeg baan leeyahay sida aad wada daawanayseen waxay ahayd najax gabadh qoraaya in wax badan runtii halkan inooga soo jeedisay intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Hiigsi waaniga ayaan Cismaan oo barnaamijka alaabaydiin soo saara kamaradihii Saalax iyo sidoo kale farsamadii Cabdiraxiin Caylaawe toddobaadka xiga intaynu kulmayno dhamaantay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh